الحمد لله ناصر السنة بأهل السنة، والصلاة والسلام على من أمرنا بالتمسك السنة، وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في العقيدة، إلهي سبحانه وتعالى هايدن بركايو. waxaan rabaa halkan inaan su'aalo u diro nimanka shiicada ah ee beenta badan leh. su'aalahaasi waxa ay ku saabsan yihiin raziyatu yawm al-khamiis. raziyatu yawm al-khamiis macna kooban haddii aan ka bixiyo waxa weeyaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalin khamiisa oo aad u xanuusnaa ayaa waxaa dhacday in uu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii ku yiri ii keena kitaab amba dawaad iyo sidaan wax idinku qoro. markaasay maaragtay saxaabadii dhexdoodii iskhilaafeen. qaar baa yidhi maxaan ku idhaahaa war nebigu waa xanuunsanayaaye bal hawshan u yarkaadiyo dib u dhiga. qaarna waxay yidhaaheen waan u keenaynaa. hawshii baa la isku khilaafay. kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maadaama ood iskhilaafteen iga tega buu ka yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam. idan haddaba waxa aan rabaa nimankan shiicada ah waxay aad u dhaleeceeyaan oo aad ay ugu caayaan rasiyadan ama arrinkani saxaabiga weyn ee jaliilka ah khaliifkii labaad ee ummadda cumar ibn khataab radiyallahu ta'ala anhu ardaah ayay aad iyo aad ugu caayaan. bal waxay yidhaaheen waa gaal oo amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu diiday. waxa weeyaan haddaba waxaan rabaa inaan shiicada Soomaaliyeed khaasatan waliba ninkan beenaalaha ah ee maalin dhaweyta lala dooday, ninkaasi waa nin raba magacdoon iyo maaragtay ishhaar iyo inuu soo muuqdo uu soo caan baxo iyo nin doonayo weeyaan. qofka bini aadamka markuu xaqa u jeedo ayaa lala doodaa. طيب marka waxa weeyaan su'aalahan waxay khaas ugu socdaan ninka Faarax la yiraahdo, waana ataxaddaa inuu ka jawaabo, waana hubaa inuu ka jawaabi karay. raziyatu yawm al-khamiis nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ii keena kitaab. kadib saxaabadii qaar baa diiday. qaarkii diiday waxaa ka mid ahaa cumar ibn khataab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah. waana haddaan u dhiga hadalka sidooda, waxaan nabigu calayhi salaatu wasalaam uu qorayay ma arrin waajib ah baa misooleyte waa arrin aan waajib ahayn. su-aasha koobaad waa taa. haddii aad ka bilowdaan ama aad tidhaahdaan waa arrin waajiba oo asal ahaan amarku wuxuu keenaa waajib, qaacidadii usuuliga ahayd lagu doldhigto, طيب waan qaadanay. su-aal labaad baa ku xigto. su-aasha u horeysa waxaan nidhi arrinkan ma waajib baa? nacam haddaad tidhaahdiin idan su-aaluhu way sii soconayaan. maya haddii aad tidhaahdaanna su-aashu intaasay ku joogsanaysaa. maxaad ku haysataan cumar ibn khataab baa meesha imanaysa marka. idan inay uu joogsanayn uu su-aalaha sii wadayo oo uu odhanayo nacam waa amar buu ahaana waan hubaa. idan haddaba waxa weeyaan su-aasha labaadna waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam shayga amarka ah sow ilaahay kumuu odhan yaa ayuha rasuulu balligh maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas. idan nabiga calayhi salaatu wasalaam shaygii waajibka ahaa ummaddiisa muu soo gaadhsiiyey mise uu ka khabeeyey? haddaba su-aasha labaad ee halkaa joogto ayaan maaragtay jawaabteeda ka rabaa. haddii uu yidhaaho nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo gaadhsiiyey shaygii, waxaan leenahay haati ken aaway halku naga soo gaadhsiiyey shayga maxaan ku idhaahaa raziyatu yawm al-khamiis dhacday. haddii uu yidhaaho nama soo gaadhsiin, waxa weeyaan ceeb baa meesha ka soo baxaysa oo ah nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu xaqii khabeeyey. midda labaad waxaa imanayso in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu defo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la caayo ayaa imanayso. qaabkay u imanayso waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa wuxuu ku yidhi balligh maa unzila ilayka min rabbika. shaygu hadduu waajib yahay ilaahay wuxuu ka yidhi nebi muxamedow ummadda u fidi. idan ilaahay subxaanahu wa tacaala shaygii uu ka yidhi nebigiisa fidi uu nebiguna khabeeyey walciyaadu billaah ayuu ilaahayna raalli ku noqday uu ka aamusay. idan waxa weeyaan nebi muxamedna xaq buu naga khabeeyey waajib ahaa, ilaahayna maaragtay maxaan ku idhaahaa nebi maxamed muu baraarujin oo uu ka aamusay. ilan ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisu hal mar hadduu maaragtay maxaan ku idhaha khata ka dhaco uu baraarujin jiray. ilaahay subxaanahu wa tacaala
نبي محمد محو كوري عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. طيب وحويا إلهي سبحانه وتعالى نبي إسقو صدا أبرارجينيو هيه oo sida maaragtay maxaan ku yiraahdaa markastaba maaragtay maxaan ku yiraahdaa u qabanayo oo le maxaan ku yiraahdaa Muhammad maxad arrinka u samaysay ya ayuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak ilaahay ba subhanahu wa ta'ala sida kule ilaahay hadaba xaqi miyu ka aamusay mis u cadeeyay hadii ay yiraahdeen u cadeeyay aaway halkay ku taala keena. طيب su'aasha labaad ee meesha taala iyadana waxa weeyaan علي ماشي uu joogay muxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam ugu keeni waayay isaguna miyuuna amarka nabiga diidin hadaa tidaahdeen uu fuliyay arrin amarkii uu fuliyay aaway haatu burhanakum halkay ku fuliyay waxa imanaysa haddana maxaad u kala qaadeen Umar iyo Ali laana Ali ba uu keeni waayay macsuumna uu ahaa. su'aasha labaad ee meesha maaragtay maxaan ku yiraahaa ku jirta oo iyadana maaragtay taala Umar wuxuu yiri iyo kooxdii raacsanayd xasbuna kitaabullah Ali tarafkee ku jira Ali uu aamusnaa hadii aad tiraahdaana waxa weeyaan qaacida meesha imanayso wasamtu calaamatu ridha aamusnaantu waxa ay ku tustaa shayga qofku inuu raali ku yahay. طيب idan waxa weeyaan haduu raali ka ahayn Ali maxaa aamusi hadii aad tiraahdan uu cabsoonayay sawta kutubtiina ku taalo Ali maba baqaba waa geesi idan aaway war meel geeya arrimahan waxa weeyaan midda kale nabiga kaleey salaatu wasalaam arrinku qorayay hadii uu khabeeyay ilad meesha ka soo baxay soo jirta horta taa waad ku gaaloobaysaan hadii aad tiraahdan nabi maxamed baa wax khabeeyay idan waxa weeyaan halkeed marinaysaan haduu shayga waajib ahaa hadii aan dib ugu soo noqono hadalkii hore ilaahi subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. طيب waxa weeyaan aayada kamaalka diinta ka hadlayso oo diintu inay dhameystirantay ka hadashay ayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam lagu soo dejiyay. idan hadii uu shaygan waajib ahaa waxa weeyaan diintiina way dhameystirantay la leeyahay shaygan waajibka muxuu ahaa aad sheeganaysaa. su'aasha kale waxa weeyaan ee meesha taal Ali ibn Abi Talib wuxuu ugu keeni waayay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ugu keeni waayay dawaadii iyo khadkii isagana muxuu ugu keeni waayay muxuu ugu keeni waayay idan Ali namiyuu ka aamusin ilaa in uu keenay ahayd muxuu isaguna uga aamusay waxa weeyaan Ali Umar waxaad ku haysaan Ali waa in lagu qabto labada gud wax idin furan ma jirto. طيب midda kale oo meesha taalo waxa weeyaan oo meesha ku jirta iyaduna waxa weeyaan shiicadu su'aasha aan weydiinayno waxa weeyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam Ali ibn Abi Talib wuxuu ku yiri maalinkii sulhul Hudaybiyah Ali yow waxa weeyaan tirtir buu ka yiri magacayga oo gaaladii markay ku yiraahdeen Muhammadur Rasuulullah waa in maaragtay maxaan ku dhaanaga tirta hadii aad rasuul ilaahay tahay anagu kulamada dagaalamneen. طيب nabiga kaleey salaatu wasalaam hadaba waqtigaasi Ali tirtir oo kala ha shaygani tir oo kala ha ilaa tirtir Ali yow markuu ku yiri masax oo tirtir marka uu kala ha soo amar ma aha wuxuu ku tusay idan Ali amarkii nabiga miyuu diiday mise ma diidin kutubtiina way ku taalaa. su'aasha ugu dambayso ee aan weydiinayo waxa ay tahay riwaayada ibn Abbas baa warinaya maadaama uu ibn Abbas warinayana ibn Abbas idinka agtiina gaal buu ka yahay haddaba nin gaala riwaayadiisa sidee baad u aqbalaysaan quraankiina waxa ku jirta xataa nin faasiqa warkiisa heedhe in la hubsanayo in la hubsanayo ayaa ku jirta. idan haddaba waxa weeyaan riwaayadaasi uu la yimiday nin gaal sidaad idinku aaminsan tihiin wal ciyaadu billah saxaabada ilaahay gaalaysiinaya sidee baad u soo qaadanaysaa oo u xujaysanaysaa riwaayo nin gaala uu soo wariyay
su-aashaana inaad ka jawaabto waa loo baahan yahay. su-aalaha intaa la eg maxaad kaga jawaabaysaa faaraxow? waxa ii dhiman oo ii soo socoto weliba beenaha aad gashayna waan caddayn doonaa dooda dhexdeeda insha allahu tacaala. ninka magaciisa la yidhaaho sulaymaan ibnu ibraahim alqanduusi alxanafi ayaa waxaa tidhi waa nin min a'immati ahli sunna waljamaaca ka mid waan caddayn doonaa beenahaaga waana kuu soo socdaa insha allahu tacaala. idan su-aalahan laakiin waxa aan rabaa shiicoy isku taga oo diinkiina shiiciga iyo kiina insigaaba iskaashada oo ka soo jawaaba su-aalaha waan idin sugaya. fideogan nin kasta oo muslim ah oo daawada waxaan rabaa inuu gaadhsiiyo sheecadaas soomaaliyeed. ninka faarax la yidhaah weliba khaasatan inuu sii gaadhsiiyo oo su-aalahaasi faarax uu ka soo jawaabo ayaan rajaynayaa. waana idin salaamayaa dhammaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.